wada shaqayn u dhaxaysay wakaaladda amniga qowmiga dalka Mareykanka NSA iyo xafiiska CIA ku leedahay Baghdad ayaa fududeeyay inuu guul ku soo dhamaado howlgalkii lagu dilay Qaasim Suleymani. Suleymani ayaa ka soo duulay Dimashq abaar 10 iyo barkii habeenimo xilliga Syria, isagoo ay weheliyaan 4 ka mid ah taliyayaasha ugu waaweyn ilaalada kacaanka Iran oo ay ka mid ahaayeen Generaal Hussein Ja'fari iyo Colonel Shahroud Mutafari. Isla waqtiga meel u jirta Baghdad 11,000 oo kiiloomitir gaar ahaan saldhigga ciidamada cirka Mareykanka Creech ee ku yaala gobolka Nevada ayaa waxaa ka soo baxay amar ah in hawada la geliyo 2 diyaaradood bilaa duuliye ah oo ah nooca MQ-9 Reaper, kuwaas oo xambaarsan 2 gantaal oo noocoodu yahay AGM-114 Hellfire. 2 diyaaradood ayaa ka soo kacay saldhigga Cudeeda ee ku yaala dalka Qatar, taas oo u jirta in ka badan 1,000 kiiloomitir magaalada Baghdad. qaybta soo dhaweynta garoonka diyaaradaha Baghdad waxaa Suleymani yarigii la socda ku qaabilay xoghaynta ciidamada xajlu shacbiga Ciraaq Abu Mahdi al-Muhandis iyo Maxamed Rida al-Jabri iyo sidoo kale 3 ka mid ah ilaaladooda qaaska ah. 10 nin ee ku jira Suleymani ayaa isku qaybiyay 2 gaari oo kala ah 4x4 Toyota iyo Hyundai minibus. wax walba halkan ayaa lagala socday, waxaana soo baxay amarka ah in la fuliyo duqeynta. 2 gantaal ayaa xambaarsanaa isku geyn 16 kilogram oo ah walxaha qarxa. 2 gaari iyo gabi ahaan wixii saarnaa ayaa basbeelay. xitaa Suleymani meydkiisa waa la garan waayay, balse ugu dambeyn waxaa lagu aqoonsaday fargal ugu jiray gacanta.